sheekh gabadh qof halkan wuxuu leeyahay qof dumar ah su'aasha soo qortay waxay leedahay waxaan ahay hooyo carruur yar yar haysta hooyadayna uma tagi karo mayna sheegin duruufaha ay ugu tagi kari weyday iyo wixii la midka ayadna ima imanayso hadday sidaa ku dhimato maxaan ahay macaasi baan ahay habaarkeeda migu dhici iyo wixii la midka falyatafadal baarak allah fiik bismillahi rahmaani rahiim waalidka waxa laazima ama kala maqnaada ama wada jooge inuu raali yahay oo uusan waxba ka qabin maqnaantaada inta haddii la helo inta la doonayo waa inta haddii uu dayacan yahay oo cid kaloo haysa aan la haynin tegitaankaagu laazim buu markaa noqonayaa laakiin haddii waalidkii cid kala hayso ama isagiiba awood leeyahay oo uusan u baahnayn cid haysa maqnaanta aad ka maqan tahayna uu raali ka yahay waxba ka qabin wax dhiba ma laha ama adugu reer lahow ama halahaanin muhiimadda waxa weeyaan waalidkii inuu raali yahay inuu sidaas ku qanacsan yahay inuusan wax dhiba ka qabin haddii ay timaado waalidku inuu ku baahan yahay ilmana marka aad leedahay waxay u baahan tahay in la iswaafajiyo ilmihii iyo xuquuqdii ninka iyo waalidkii xaqiisii meesha marka waxa iimaanaysa xaaladaha noocaas oo kale in loo baahan yahay ragga dumarka qabaayay in ay fahmaan xaaladda noocaas oo kale markay xaaska ku timaado oo waalidkeed dhiban yahay ayadana u baahan yahay in uu fududeeyo si waalidkiina loo xanaanayn lahaa ducana looga heli lahaa ilaan ducadu xaaskiisii iyo gurigiisii iyo carruurtiisii bay saamaynaysaa isaga laftiisay ku soo noqonaysa inuusan noqonin macangago uusan dhihinuun aniga halkaa ii fadhi ma dhaqaaqi kartid warta ma dhaqaaqi kartid ma ahee aduguba waalidkaa hadduu xaaladdaasoo kale la soo daristo maxaad samayn lahayd sida aad waalidka uga daqan lahayd bay iyaduna waalidkaad uga danqanaysaa marka waxay u baahan tahay duruufaha noocaas oo kale inay raggu qadariyaan oo waalidkii la isla xanaaneeyo oo gabadha loo fududeeyo ama waalidka in la keeno ama waalidkii loo tago waa hadduusan ka maarmaynin ilmaha inuu u tago hadduu ka maarmi karana markaasi dhib ma laha raallina sidaa ku yahay wallahu aclam su-aasha thani labaad wuxuu leeyahay qofkan waxaan ahaa qof labadiisii waalid caasi ku ah intay dhinteen kadib baan waxaan dareemay cuqubadii maxaa ila gudboon hadda cuqubadii haddii kugu dhacday waatina hadda ka warramaynay nin Soomaaliya ii yimid muddo ka soo wareegtay wuxuu igu yidhi niyow nin af xun baan ahaan jiray oo waalidkay ku afceliya dhallinyaraan ahaa buuhi waagaas ilaahay wuxuu qadaray buu yidhi afkaygii inuu uray buu yidhi afkii baa ii uray buu su-aashii weydiinaya waxay tahay masaajidda markaan imaadoon dadka la tukanayo dadkii sidii ruux basal cunay oo kale agtayda ma istaagi karaan si kasta haddaa waxyaalaha udgiya xataa isticmaalo afkii waa soo uraya sheekhu maxaan sameeya jamaacaadkii ma isaga tagaa asagu markaa wuxuu rumaysan yahay waalidkuu ku afcelin jiray ee ku af adkaabaa laga soo gaadhay oo afkani la uray marka waa amhilada waalidka cuqubadiisu ma daahdo sida nebiga hore u tilmaamay sal alla alayh wasalam waxay markaa u baahan tahay inaad ilaahay u toobad keento dambi dhaaf weydiisato marka labaadna waalidkaan nool hadduu nool yahay inaad cafi weydiisato hadday dhinteenna sidaan hadda tilmaannay inaad u dadaasho u sadaqayso xajido cumrayso sadaqa u bixiso u ducayso wahaakada yani dadkii ehelkii dadka isjeclaan jireen xidhiidhiso waalid dhintay sidii baari loogu noqon lahaa tan soo tilmaannay weeye taasaa lagaaga baahan yahay hadday nool yihiinna waa inaad lugaha qabsato ood gundaha qabsato oo ay ku cafiyaan oo ku saamaxaan nacam su-aasha kale xigta wuxuu leeyahay waa qof dumaran rajaynaya tahay zawjkaygu waa nin aad u mucaamalo xun labadayda waalid weliba khaasatan habdhaqankooda wuxuuna amrahayaan ayaga labadii waalid inaan zawjkan iskaga fogaado oon maaragtay aan kala tagno qofkii dumarka maxay arrinkaa samaynaysaa waalidka ma amray waalidku amray
meesha waxaa imaanaysa mas'alo la yidhaahdo xaaska xaqa ninkeeda iyo xaqa waalidka keebaa weyn hadday isqabtaan oo iswaafaqi waayaan oo ay noqoto qasab in midkood la ilaaliyo keebaa mudnaanta leh axaadiidta nebiga waxaa laga qaadanayaa xaqa ninka ayaa mudnaanta leh markay labada xaq isku dhacaan masaalix kalaa la fiirinayaa sidaas daraaddeed waa inay isku daydo gurigeedii iyo ninkeeda iyo ilmaheeda inaysan dumin xuquuqdii ninkana gudato isla markaana waalidiintii inta tabarteeda ah inay baari u noqoto inay iswaafajiso waa inay isku daydo ninkana sii horan tilmaannay weeye waa nooc runtii aan fiicnayn oo aad u xun in aad gaadhsiiso xaaskaaga heer ay laba khiyaar ay hor yimaadaan ma waalidkaabaad u xilataa mise ninkaagaad u xilataa adaa loo baahan yahay adaa odayka reerkii saan tilmaannayba ducada xaaskaagu ay hesho gurigaagaa ku barakoobaya waalidkan laga ducaysanayo xaaskii iyo gurigii buu saamayn ilmihii ay dhashay bay ducadu gaadhaysaa wax adigiiba dani kuugu jirto inaad gabadha ku cadaadiso sax maaha bal waalidiinta xaaska waxaa loo baahan yahay inaad uga danqato sidaad waalidka uga danqanaysoo kale oo aad noqoto ruux xis iyo dareen leh nacam jazaak allahu khayr su-aasha kale ku soo xigtaa wuxuu leeyahay qofkan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waalidkii ma u shafaaco qaadaya qiyaamada ama hooyadii ama labadii waalidba ma u shafaaco qaadaya qiyaamada في صحيح مسلم وحكو يالا كتابك لبعض أحاديث ugu weyn Bukhari baa koow ah Muslim baa laba ah Sahih Muslim ka waxa ku yaala in nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi asagoo socota ah oo Makka iyo Madiina dhexdooda jid ka haya qabriga hooyadii meeshaas ku yaala jidkii uu hayay saxaabadu la socday waa leexday nabigu sallallahu alayhi wasallam qabrigii buu ku leexday qabrigii markuu ku leexday oo dul tagay nabigu waa ooyay sallallahu alayhi wasallam waa hooyadii qabrigeeda waa ooyay nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu ooyay kadibna saxaabadii la socotayna waa ka oohiyay way la ooyeen markay arkeen nabigu ooyay sallallahu alayhi wasallam markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri rabbigay baa waxaan weydiistay inaan qabriga hooyaday siyaartoon booqdo waa ii ogolaaday buu yiri waxaan weydiistay inaan u duceeyo inuu Ilaahay u dambi dhaafo waa ii diiday buu halka waxa ku soo degtay aayada quraanka rabbi leeyahay ma kana lin nabiyyi walladina aamanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim nabi iyo dad mu'miniina minna uma banaana in ay dad gaala ah oo gaalnimo ku dhintay inay Ilaahay dambi dhaaf u weydiiyaan oo Ilaahay u dambi dhaaf dhahaan nabina uma banaana cid kale warkiisa iska badaa markii loo diiday nabiga hooyadii inuu Ilaahay u dambi dhaaf yiraahdo markaasuu nabigu ooyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi naxdin yaani danqasho uu hooyadii u danqanayo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka rabbi wuxuu ku yiri maya ana waxa jira waxyaalo masaa'il waxa jirta aan galin baa jirta ma gasho ruuxan mar hadduu gaalnimo ku dhinto ya ilaahu nabi dhalo nabi mu aabba u ahaado nabi hooyadii mu noqdo marba hadduu gaalnimo ku dhinto khalaas nabigeena keliyana ma aha salawaatu rabbi wa salaamu alayhi nabi ibraahim khaliilur rahmaan anbiyada nabi maxamed baa ugu fadli badan nabi ibraahim baa ku xiga nabi ibraahim aabihi aazar ya soo quraanku ma sheegin inuu gaalnimo ku dhintay nabi ibraahim waxa lagu yiri aabaha ilaahay dambi dhaaf uma weydiin kartid Soomaaliyeed ballanqaad hore uu siiyayna quraanku waa ka hadlay maalinta qiyaamadana waxa la keeni doonaa aabihi oo dhurwaa inta loo eekaysiiyay baashi hayay mi ah
انت بضح من جهل قبطان نار تلقوا توريا والعياذ بالله. والنبي الله إبراهيم آبه لأن قال لي مقول انت آزر قرآن كاشي نبي نوح ويل كيسي آوي يا سورة الهود لقى مشاكل إني بيه قادين وقال لي مقول انت والنبي نوح مركو ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ربي ويل كيجو أهل كيجيبو كم بدها بلن قادنا واد سيسي بلن تادنا حقوي سوي وجرا ربي مركو ويدي وحلقوا يريد إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح بالي ويل كوادش لكن أهل كاجي بلن قادك أنكوسين كم بدما maxay leewaaneen dhaqan xun la yimid waxa gaalnimo la yimid raali aw balay Soomaali marka waxa weeye nabi baa dhalay iyo nabi bay isdaleen iyo nabi baa maartay aabba uu ahaa iyo nabi baa hooyo uu ahayd ilaahay warka ma yaqaan warkaasi wuxuu socon karaa markii mabda iimaanka la isugu yimaado wada rumeeyaan Soomaali markay wada rumeeyaan oo iimaan la helo ama gaalnimo hadii lagu dhinto bas waay نبي لوط يا نبي نوح حاسس كودي سو قرآن كمان رمي يا وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح يا وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين لما النبي باقبي فخانتوهما قالي نقدين فلم يغني عنهما من الله شيء وحويروا رواية نبي نوح يا نبي لوط لو ضودي حاس وحوا رواية نار كما بدبادين كرا وقيل ادخل النار مع الداخلين نار تقال لي لودي حاس القرآن محو نو شيغي ابي نبي دلي او العذابي ويل نبي دلي او العذابي حاسس نبي قبين او العذابي سوما hadii marka nabigeenu inoo sheego hooyadii in la yiri ilaahay dambi dhaaf uma weydiin karti ma haynaan idhaahno ma nabi maxamed يا ورما نبي محمد الله أكتيسا وكوين لكن واحد شرطة وحيالا أن اسبدلين باجري الله أكتيسا يلا الله ابن مرنا أنقلي كريم لقنا الشفاعي كريم لقنا الشفاعي كريم مسألة هذا قال لي ما تمادو يشرك اللي قلت أنت إيمان الآن ما قليسه مركز إله أكتيس تبارك وتعالى وأساسه إله يحكم أيوه استثنانا ماله نار تروح قلي وأنا كواريا والله أعلم سؤال شو حليه هاي قصة جريج هو يدي مركي يقول واقضي صلاة بوكوشري صوما كدي مركو صلاة جوده هدي هو يدي لحد لوايه بهبارت مركو صلاة أنه كوشرنا هدي ما مضوا نور واقضه ما هي بانتاهم سؤال شو أساس جوابت وحوي الصلاة والله بقى صلاة هدي واجب تهاي مايا صلاة هدي واجب تهاي لحد لميسيد الصلاة ضميسان صلاة aad ku jirto haday sunno tahay oo salaad sunna hooyo ku yeedho waa inaad heed tiraahdo salaadana ka baxdo ma la faham jurayj marka wuxuu tukanayay salaad sunna abu tukanayay saasaradeed ba al-imam an-nawawi alayhi rahmatullah sahih muslimka abwaabtu u sameeyay markuu baabaynay macnahaas uu baabayay marka wax weeyaan salaada sunnada waxaa ka mudan waalidka daacadiisa laana daacada waalidku waa waajib salaada aad ku jirtana waa sunno iyo waajibna waajib ah horeeyo wallahu a'lam su'aasha ugu dambaysa qofka wuxuu leeyahay waan xanuunsanahay waxaan rabaa in la duceeyo hooyada dhimatana in loo duceeyo intaasan ku soo gabagabeynayna insha Allah tabaaraka wa taala barakallahu fiikum Allah caafiyo amiin isaga iyo inta jiran baa Allah caafiyo isaga inta jiran baa Allah caafiyo caafimaad degdeg Allah siiyo والدينتا دقيدا انت دبان بدباتد الله ka qaado inta dhimatayna Allah u naxariisto ilaahayna tabaaraka wa taala inuu anfaco waxaan maqalay hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam barak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ninka su'aashiisa saan u fahmay haday tahay wuxuu leeyahay marka culimadu maxay uga hadli waayeen waxyaalaha qaar kood oo dhaca saasa culimada saasa la leeyahay buu anu ma garanayo wax ma aragtay dhaca oo dadka muslimiinta ama bilaad islaam ama diinteena dhiba
waxaad gudub ku ah oo culimadu aysan ka hadlin oo ay ka gaabiyaan wax allaala diintan runtii difaaceeda ma garanaysaa ee ximaayada waxa loo xilsaaro culimada loo xilsaaro marka sheekhan insha Allah ta'ala su'aashu u gudbinaya sidaas ninka uu yiri sheekh maxaa ka jira culimada kama hadlaan miya wax dhacdooyinka dhaca oo caalamka islaamiga ka dhaca hadda masalatu quds oo kale aan ka soo qaadno waad ogtihiin 2 asbuuc ku dhawaad caalamka islaami khaasatan masaajida iyo manaabirta iyo dadka culimada iyo dadka mufakkiriinta iyo dadka waxgaradka iyo dadka maxkaamta waxay ka hadlayeen waa masalada marka sheekhan ku rajinayna fadlan bismillah hayla tahay waxa dunida ka dhaca waa kala nooc dadka bar waxay iska jecel yihiin wixii meel farka ka taagaba in laga daba taago wax saxana ilama muuqato wax saxahay waxa weeyaan islaamka wax ka mid ah inaan la qarin islaamku inuu noqdo cidii rumaynaysa ana cambayina ay u rumeeyaan cidii ka gaaloobaysa ana cambayina ay uga gaaloobaan hadday mushkiladii timaado oo nin caalim oo la garanaya uu ka hadlay kama laazimayso in dhammaantood culimada kale oo dhamina ka hadlaan مثلا مسألة تمي شبلي باهضلي محمود انت كلا هدا يسكا مصناته وحبا شيء ميسو وهي مسألة دي حجدي اوك قصب ما هين دمان توضي مدحككو أصلك وحويا وين دادكان لا دسو ومحال لقد دسيا بني آدم كوين موازين لسيو ميزان وحق يا باطل كوكا لقرتو لبا قضيادود با كلا جيرا shubhada radinteeda iyo xaqa garashadiisa waxa horeeya xaqa garashadiisa qofku haduu miisaan u haysto maxaa baatila maca xaqa uu ku kala garan karo waa wax fudud ay shubha timaada uu ka qanci kara hadii si aanu haysanin muwazinti rasmiga ahayd de shubhaadku maalin walba kunba soo baxa shayaatiintu maalin walba inta soo cusub ay alifaan shubha uun lama wadayo warkeed waxa asalo culimada inay diinta bayaaniyaan dadkana u dhigaan waana isleeyahay in badan oo kamida waa la qabtaa wax laga gaabiyo hadii jirtana in la isku booriyo weeyaan wallahu a'lam waa mas'alo fiqi ah marka baaci shirabay ku saabsan tahay waxaan ka hormarinaynaa hadii su'aalo mawduucan ku saabsan hadii jiraan naam fadlan شريعة إسلامية هي كو ورت شرع إسلامي أمرك إنه أنا شرع على طبقي معناه هذو ما ها جنايات سكبر بواحد وهستان أحكام الجنايات شنافرة هدي لا طبقونا إن الإسلام كلا طبقي هدان لا طبقينا إن الإسلام كلا جتكي إسلام نمدوا بالله أنت إسلام كورنا نقادا نمرك هوري وامد مرك اعتماد أحكام تايا حق ولا يطبقه دمام الكاوله haddii kale waa inuu dhaano qof waliba hadda boqo de ninba ninka ku xiga haduu intuu gacanta ka jiro yiraahdo tuugbu aha socon mayso wuxuu u baahan yahay nidaam sharci iyo maxkamad loo ijraa'aat loo qofkan isdifaaci karo xuquuqdiisii uu heli karo sharci lagu xukumi karo taana de waa system inuu jiro xukunka marka lagu furiyo inaan qaadiga isna madaxa laga goynaynin de dawladda system taay wax kan dantan mid iska soo qabato tiraada qisaas baan ku fuliyay adna reerkooda ay kugu fuliyaan mid kale oo baatila de waxba yana socon mayso idan ahkaam markay timaado maamulo bulsho ka dhaxaysa de waa wixii laga rabay inay dawladda iyo system ku fuliyaan maamulkay u taala maamulada qaarna waa iska daciif oo umalayn maayo xuduudaaye waxyaabo ka fudud baa looga taaglaayay fuliya midna ogsoonow tuulo yaroo gaari dunidan islaam ma fulin karto dan caalamul islaam oo dhami bislaanin inta ugu badan isku xidhmin cunaqabatayn dibad ka timaadiya dagaal dibad ka yimaadaba aan iska difaaci karin waxba sheegi mayso intaad tuulo qabsato shan qof gacanta aad goysid dabeetana dawladda ku qabsato kale oo gaala ah waxba xukum fulintaasi ma aha masaakiintu baad meel kale ka sii toortay marka asalku wuxuu yahay وين لها سيستم كي شرعيا دفاعي لها سيستم كي شرعيا دفاعي لها بليون يو ديرات كان مسلم كي الدنيا كون نولي وين كتاب كود دفاعي كران والله اعلم
بسم الله نكان سؤال بكسو قري إنجليزي. Does a Muslim allow to attend non-Muslim burial? قف مسلمة ما كقيب قالي كرا قف عن مسلم أهين لا آسيو. جنازة عادية ودام شرعي خلاف سنيان وشيرين ربو ماركو. دان كورو دين مقشين السؤال شنك ولالك إنه ويديي تقريبا واحد سلادة وحي حرير لا هاي أما على الأقل هاي موضوع الشيخ وكهد لي وحير التبليغ جماعة التبليغ اللي يراه مساجد إن أي كهد لان محله جديدي مركز الشيخ مصطفى فضل أنه كله يتبع أنه كله يتبع مساجد كأنه dad intay noo yimaadeen aan u diidnay ma jiro sheekh markuu ka hadlana kelimad baan raacsan doonaa insha Allah taala fadal sheekh waxaan u malaynayaa horta wixii de maamulka ku saabsan in maamulada masaajidda la weydiiyaa ma ahay hadday jirto maamulo masaajidda u diidan qofku hadduu diin sheegayo xaqna uu sheegayo in loo diida maaha qofka isna raba inuu wax sheegaa waa inuu iska hubiyaa waxa uu sheegaya inay diinta ka mid tahay مثلا حديث baad sheegaysaa haday nabiga caynka yiri mana oranin waa ceeb inta dadka soo taagto nabi maxamed waxaanu oranin inaad tiraahdo alayhi salaatu wasalaam nabiga waxa yiri idan hadduu qofku waxa uu sheegayo wuxuu iska soo hubiyay ay tahay مثلا تبليغات sheegtay haday riyaad saalixiinka ahadiista ku qoran sheegaan quraanna sheegaan dadkana ilaahay ka baqay yiraahdaan wax loogu diida garan maayaanu day hadis sax ay sheegaan laazim ma ha qofka wax sheegaya inuu wax walba yaqaano laakiin waxa laazima waxa uu sheegaya wuxuu garanayo aakhiro uu ku badbaadaya inay waxaanad garanaynuuna isku sheegi oo intaad riya ka bilowdo iyo meelaha kan waxaan jirin ha sheegin laakiin waxaad sheegtaa maxay wax diina oo sax ah hadaad sheegayso in lagu diido maaha wallahu a'lam بسم الله كسينا شيخ سقاير طبعا waxaan idin sheegayaa Sheikh Abdul Aziz bin Baz كتاب اللي يراهدو التبليغ ما لهم وما عليهم ayuu wuxuu sameeyay muqaddimah aniga akhriyay kitaabkaana hayn jir lakad meel uu iga aadama qan waa iga dhumay sheekha marka wuxuu yiri nimankaas tabliiq la yiraahdo wixii ay ku toosan yihiin ha laga la tacaawuno waxay ku qaldan yihiin ha loo naseexeeyo masaajidana ayaan loo diidin mawjada waxay ku qaldan yihiin ha loo naseexeeyo wixii ay ku asiibaanna ha laga la tacaawuno ha lagu kaalmeeyo mawjada marka tabliiqu naftiisana waa tafaa'um kala duwan yahay nimankan tabliiqu hadda ka yimaada urdun iyo falastiin iyo khaliijka meelaha qaar kood sacuudiga iyo kuwait iyo niman tabliiqa oo culumaa oo runtii ma aragtay xagga aqoonta ay fiican tahay baa noo yimaada marka qaar kood marka masaajid bay yaqaanaan oo aadaan annaga nooma yimaadaan nama soo maraan laakiin tabliiq runtii waxa jir niman xagga aqoonta runtii ma aragtay khuraafa iyo waxyaalo badan iyo ahadiis ma garanaysa daciifa iyo khaasatan rag Asiaanka oo Asia ka imaanay India Bangladesh iyo Pakistan kuwa naftooda hadii wax wanaagsan sheegayaan annagu waxa waaye fatwada Sheikh bin Baz baan qaadanaynaa marka runtii xaalad dadka muslimiinta ay marayaan dadka muslimiinta maanta waa in la jamciyaa waa in la aruuriyaa mawjada dadka muslimiinta waa in la mideeyaa wax badan bay runtii heshiisku iyo wax isku khilaafsan wax yar waa نعم فضل شيخ أوردان شيخ السؤال ويري ورك مرتدي سوحوي
kitaabkii Allah subxaanahu wa ta'aala soo dejiyay waa yaallaa waa kan masaajidka meel kasta saaran dadka muslimiinta maxaa ku dhacay kitaabkii maxay ugu dhaqmi laayihiin u tabaqi laayihiin waa anaga sheekha weydiinaya fadal bismillah su-aashii hore weli haddaan in ku daro xaqa iyo qofku iskuma xidhna gaalku hadduu xaq sheego waa la qaadanayaa qof muslima ka kaalay gaalku hadduu xaqa sheego waa la qaadanayaa xadiiskii abu hurayre ee shaydaankii ama jinkii xadayey sadaqaa loo dhiibay abu hurayre uu nebigu u dhiibay dabeetana habeenkii baa mid jini u yimaadaayo wuu xadaa abu hurayraa qabtay isagoo malaa soo tashakulayde waa qabtay wuxuu yidhi carruur iyo baan ka imid dad baahanoo waa kaase iska kay cafi uu iska sii daayey ilaahay baa nebi moxamed u soo waxyooday calayhi salaatu wasalaam dabeetana subaxii buu nebigu wuxuu weydiiyey abu hurayra war ninkii xalayta muxuu ku yidhi wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow waxbuu xadayo markaan qabtayna waan baahanee iska kaydaa buu yidhi waan cafiyey been buu kuu sheegay wuu soo noqonayaa buu nebigu ku yidhi abu hurayre habeenkii dambe waa u diyaargaroobay haddana kiiyoo dhusdhusla yimi habeenkii dambe waa qabtay sidii buu haddana u calaacala war iska kay sii daa buu yidhi dad baahan iyo caynkan baan ka imo jilicsane waa iska sii daaya abu hurayre waa u naxariistay subaxii ayuu yimi saxaabada naxariistooda aad arkaysaa tuug weeyaan kaa uu sii daydaynayaa ayuu u yimi wuxuu nebigu ku yidhi xalayta muxuu yidhi xalayna saas ayaa saasuu igu yidhi buu yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi been buu kuu sheegay wuu soo noqon doonaa habeen saddexaadkii buu qabtay habeen saddexaadkii markuu qabtay ayuu yidhi sii daa war adigii beenta akhrinayay caawa cilman ku barayaa qaada buu yidhi sii daa sheeg buu yidhi wuxuu yidhi aayad kursiga haddaad habeenkii akhrisato shaydaan iyo jibanba kuu soo dhowaan maayaan waxoogaagaa cilmigaa buu sheegay waa shaydaankii waxadayay dabeetana wuu sii daayey subaxii buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maa facala saaxibuk muxuu sameeyey saaxiibkaa muxuu yeelay wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu xalayta sheegay war cilmaan ku barayaa sii daa buu yidho ii sheeg baan idho intaasuu ii sheegay aayad kursiga haddaad akhrido jibanka ayaa waxaasi waxba kaa qaadi maayaan sadaqaka wahuwa kaduub buu nebigu yidhi run buu kuu sheegay isagoo beenaala ah idan haddii shaydaan cilmi laga qaatay ciddii kale cilmi sheegaysa hadduu cilmigu sax yahay meeshuu doonaha ka yimaada waa la qaadanaya cilmigu hadduu sax yahay oo alliya rasuulu kuu dhowaynayo waa la qaadanaya sheekhan su-aashiisii waxay ahayd haddii islaamnimadii la googoynayo muslimiintu xaggay ku maqan tahay dee armay muslimiintuba qayb ka yihiin kuwa googoynaya ama maamuladooda ha noqdaan ama innaga iyo qabaa'ilkeenna ha noqaatee innagu islaamnimo ma ku wada dhaqannaa haddaynu daacad noqonno islaamnimada ku dhaqanno wuu dhowrsoomayaa kitaabkani cid difaacdana wuu helayaa laakiin haddii aynan innagu isku dhaqaynin ee aynu barako u haysanno marka la dhintaa un baynu wadaadka u yeedhnaa iyo kitaabka qur-aan ah in laga barakaysto ficlan baraka wuu yihi laakiin marka la rabo in la ismaamulo isaga waa la ilaabaa dadkii difaaci lahaa waa muslimiinta hadday muslimiintu iimaankoodu uu xoogoobana ilaahayna wuu u gargaarayana kitaabkan way difaaci haddiise iimaanku uu sii daciifayo oo qofkuba naftiisii iyo shahawaadkiisii uu ka xoog badnaan kari waayo waa adagtay inuu diin kalena difaaco inta aan ogahay wallahu aclam بسم الله سؤال أيضا وشيخ إنجليش وحوليه هاي University of Islam means what عالمية الإسلام عالمية الإسلام معناه هذا محوية هاي أنا شمولية دي تقريبا سادس دينتي أنا هاد ليوردن هدادي فهمي كروي دي ساعات تلو شن مريد ما كوكو فهم سين كرايا ساشو أتاسي
islaamku waa universal macnaheedu waxa weeyaan kow basharkoo dhan baa loo soo dejiyey intaynu masaajidka la gallo haddaynu idhaahno yaa ahlal kitaabi quulu ahlu kitaab halkan ma joogo ahlu kitaabka xaggaasay joogaan waa inaynu iyaga ku soo nidhaahnaa qur-aanka imisa ahlu kitaab la hadlaya intee in leeg mise aayadood baa yaa ahlul kitaabi la leeyahay ma innagaa isku akhrina mise ahlu kitaabka inuu sheegnaa kuwii ilaahay la hadlayay miyaynu gaadhsiinay mise innagaa intaynu masaajidka hoosta ka xidhanno isku nidhaahna yaa ahlal kitaabi baa ilaahay yidhi idan kitaabka qur-aani albashar alinsaan meeshuu doonaba ha jooga baa loo soo dejiyey waxaanay saaran tahay mas-uuliyaddu inay gaadhsiiyaan dadka muslimiinta ah kaasi waa mid waa universal dhankaa marka laga eego basharka iyo nawciyaadkiisa oo dhan jinsi gaari ma leh carabi ma leh ee waa ajnaasta bini aadamka oo dhan noocu doonaba ha noqdee marka laga eego xagga waqti gaara ma ahayn oo cahdigii nebi maxamed iyo wakhtigaana inuu sax ahaa iminkana aan la qaadan karaynin sax maaha ee waa inuu universal yahay ilaa qiyaami saaca in loogu talagalay inuu jiri karo ama uu noqon karo wax lagu dhaqmo oo lagu noolaado idan inaha iyo intii ka horraysay wixii aan sheegayba waxay tilmaamayaan in loogu talagalay caalamka dhammaantii lilcaalamiina nadiiran inuu noqdo ayaa loogu talagalay wallahu aclam جزاه الله خير شيخ مصطفى محاضرة قيم كأه وما شاء الله أن آديات أمثلي أن تقول فايدي ستين إله ميزان كيس حسنات كأوصار أننا هنقدقوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الشيخ أبو العينين بنكوري جنيا برنامج كبرتو صبحي بعد الفجر يا برنامج كبرتو دنبو ينوش يا فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ سائلك وحوليه هدي والدك عرورتي سيسف قرن ويان maxaa dhib ah oo ku jira waxay hadeen la yiraahdo maxaan dhib ahayna ku jira waalidka iyo carruurta isday safiran waayaan waalidku nolosha uu soo noolaa tajaarib buu hayaa aqoon buu hayaa diin buu hayaa dhaqan buu hayaa siduu ugu gudbinayaa ilmihiisa haddii aanay isfahmaynin afku wax weyn maaha barashadiisu ilaahay baa maskaxdeenna ku rakibay sida loo barto waxaa lay sheegayay gabadh soomaaliyeed oo nin maraykani qabo oo carruur badan u dhashay oo dhammaantood af soomaaliga ku hadla waxaan ku idhi say u dhacday waxay dhahdeen hooyadoodunbaa waxay go'aansatay inaanay u jawaabin haddii uu af soomaali wax ku weydiin waayo waa ilmo nin maraykani dhalay laakiin hooyada Soomaaliyeed waxay ku dadaashay inay ilmaheeda iyadu ma af Ingiriisi la waa gabadh aqoon oo wax baratay laakiin waxay rabtaa luqadeeda inay barto dabeetana ilmaheedii yaraa waxay ku bilowday iyadu inay af Soomaali kula hadasho aabahoodna af Ingiriisi kula hadlaa ilmaha yar isagoo bilingual buu joogaa aabihiina af Ingiriisi kula hadlaya hooyadiina af Soomaali kula hadlaya intaasoo carruuray dhashay dhammaantood af Soomaali ku hadlayaan hadday af kale wax ku weydiiyaan way u dhagoolaysaa un lama hadasho aniga maaha un bay leedahay qofka lala hadlayaa dabeetana wuxuu ilmuhu ku qasbanaaday si hooyada xidhiidh ula sameeya inuu ku hadlo maxay iyagoo yar waxaa kaloo arkay tajribo uu sameeyey nin carbeed oo aqoon-yahan ah ilmihii uu dhalay ayuu xaaskiisa wuxuu ku yidhi adigu lahjadda kula hadal inay labnaaniyiin baan u malaynayaa lahjadoodan maxalliga ah aduu kula hadal buu yidhi aniguna fusxadu maan kula hadlayaa ilmihiisa isagu fusxada quru kula hadlaa islaantuna lahjadday kula hadashaa ilmihii 3 jir markuu marayo fusxada iyo lahjadaba si fiican buu yaqaanaa aabihii markuu la hadlayo luqa alcarabiya alfusxa taa quraanku ku qorayo ku hadlaya hooyadii markuu la hadlayana af carabigan jabana suuqa lagaga hadlayo odayga wuxuu leeyahay lecture buu ka jeedinaya oo kaga warramayo waxyaabaha qariibka ee aan arkay wax ka mid ah buu yidhi hooyadii baa odhanaysaa aabbaha waxaa ku dheh iyada lahjad bay ugu sheegaysaa markiiba intuu tarjumo aniga fusxadun buu igu sheegayaa buu leeyahay waayo aabbaha fusxadun baa marta
waxa kaloo lagula hadlaa ma jirto luqa carabiga fusxa buu ku hadlaya waxa dib nagu noqotay buu yiri maadaama aanu laba nin nahay luqada carbeedna dhadig iyo rag ay leedahay maanan haysan buu leeyahay luqadii qaybteedii dhadiga ka warramaysay ciidankooda markii dambe ilaahay siiyay buu yiri markuu kan 3 jir marayay mawlud kalaan helay oo yar oo inana negotiationkii inantii baa iyana wararkii ka soo qayb gashay saddexdeeduba fusxadan ku wada hadalaa buu leeyahay waxaan uga dan leeyahay ilmuhu intuu yariyay haddaad ku tijaabiso afkaas dhegtiisana uu ku dhaco guriga marka la hadlayana uu afkaa maqlo waayo ilmuhu markuu yariyay ee koowaad afka wuu urursadaa wixii dhegtiisu waayo noloshoo dhan muxaakaa buu ku bartaa isku day noloshoo dhan isku day buu ku bartaa marka hore wuu ururiyaa dabeetana waxaa bilaabantay inuu afka fahmo keen baad leedahay wuu keenayaa hoobaad leedahay laakiin isagu ma odhan karo waayo weli makhaarijtii ma helin makhaarij alxuruuf halka ka soo baxaysay tijaabuu bilaabaa markaa inuu xarafka meeshii laga soo saari lahaa yidhaahdo si qaldan buu ku dhawaaqaa inta hore oo dhan carruurtu erayadii oo qaldan oo aan si sax ahayn inta hore hooyadoodunba afkarata oo tidhaahdaa waxaasuu rabaa saasuu ku leeyahy waayo makhrajku si qaldan ugu dhawaaqaya laakiin tajribadu wadaa muddo markuu tijaabada wado marka dambe eraygii oo dhammaystiran oo sax u soo tuuraa inta hore ilaa 200 oo eray buu bartaa intaasuu isku celceliyaa ilaa 4 jir markuu soo gaadho wuxuu tiradu way sii badataa ilaa 700 eray waxbay soo gaadhaa 5 jir 6 jir markuu gaadhana waxaa laga yaabaa luqada inteedii ugu badnayd inuu hayo idan waalidku halkaad adigu af sawaaxili jajaban kula hadli lahayd af soomaali fasiixa kula hadal isagaa baranayee inagu markaynu hadlayno sawaaxili jajaban baa ku hadashaan soo maaha marka intaad sawaaxili jajaban kula hadli lahayd aduu af soomaali saxa kula hadal isaguna wuxuu baranayaa maxay af soomaaligaa saxa ha ka warwarin sawaaxiligana berrito kuwuu la cayaaraya carruurtaabuu ka baranaya kuwan dabadda uu kula cayaaraya ama iskuulka markuu taga maqaan berru toos isagana uu baranaya laakiin tiisa kale waa inuu sugaa intuu guriga joogo taanu meel laba u bixinay guriga joogo waa inuu afkiisa hooyo u sugi karaa afkuna de waa xidhiidhka waalidku wax ugu sheegi karaba ilmuhu dhalay af kale kuma sheegi karti kiinebaa af kale ku gudan kara wuxuu rabay oo dhan hindida bay yidhaahdeen afku urdugu kama lumo indiya marka la joogo waa meel diimo badan oo afaf badan kumaankum af lagu hadlo kumaankum diimood yaalliin saa daraaddeed qofku markuu waddankiisa joogay buu feejigaayoo soo jeeday markuu indiya joogay buu wuxuu qabay dagaal ah afeed iyo diimeedba dabeetana wuxuu ahaa qof feejigoo soo jeeda bilcagsi innagu markaynu soomaali nahay afka kamaynan fakari jirinoo dadkoo dhammi af qurun buu ku hadli jiray diinta kamaynan fakari jirinoo dadkoo dhammi diin quru wada haystay oo ilmaha macallin qur-aanka iyo iskuulka kuwa jooga iyo kuwaasaa diinta u dhigayay aabbuhu diinba uma sheegi jirin markaynu halkan nimi xaggaa markaynu joognay markaa aabbuhu wuxuu ka adkaa inuu ilmahaasi aanu gaajoone wuxuu cunay inuu guriga keeno hooyaduna waxay ka adkayd inay u kariso oo nadiifiso oo dharka u maydho oo hagaajiso intan amaa wixii af iyo waxbarasho iyo bulshadoo dhan buu wadaagayay meelahan markaynu nimina sidii baynu inagu u fakarnaa odayguna beriskiibuu ku maqan yihin islaantuna way karinaysaa oo yaaba baraya kan markaa afka iyo diinta iyo dhaqanka iyo idaayaa baraya laakiin ninka hindigii markuu halkaa joogayna isagaa diintiisa ilaashanayay oo afkiisa ilaashanayay oo dhaqankiisa ilaashanayay oo waayo jaarkiisa af kale iyo diin kale haystay saa daraaddeed wuu ka ilaashanayay iskuul gaara buu lahaa af gaara buu lahaa dhaqan gaara buu lahaa dad gaaruu ahaa oo dad kale la degan halkan markuu yimina isagu waa sidiisii waa ninkii ilaashanayay afkiisa iyo diintiisa laakiin adigu waxaad tidhi xayallah dee uun dadka ha ka mid noqdo dee maahmaaheennana qaar qalloocan baaba iskaga jirayoo meel lagu ilaayay haddaad tagtay ishaa la yska ridaayo
carradaa tagtaa camalkeed la yeeshaayo mala hadda inaynu dadka ku daransanno anigu waxaan is leeyahay dadkaba kamaynan yaraaneene ummadahaynu biirinayno sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay af Soomaaliga waxaa la qoray 1972 maxaa u diiday culimada in ay dadka ku wacyigeliyaan af Soomaaliga in la barto waa ishtaka culimaad baan u malaynayaa waxaad wado culimadu maxaan af Soomaali ahayn ay diin ku sheegaan yani af Soomaali diin ku sheegaan ma had rabtay intaan khudbadda imaado inaan idhaahdo af Soomaaliga lagu sheego halka kan markii wadanka la joogay dhibtani kuma badnayn dadka markii qurbaan loo soo baxay bay ceebtani muuqatay oo dadku la wada arkay in luqadii iyo dadkiiba sii lumayaan ama sii halaabayaan saddex group aan sheegay aan lahaa af Soomaaliga way u dadaaleen saddexdii kooxood saddexdooda kooxood ka dambeeyay mararka qaarkood waxaan idhaahdaa iyagu uma dadaalin culamadii hore maadaama ay luqad Soomaaliyeed oo barax tiran ku soo qaateen cilmiga iyadoo barax tiran bay ku gudbiyeen culamada dambe in badan oo kamidi ama sidayday iskuulay ka soo baxeen waa bawsadeen ama sida sheekhan iyo culimada lamid ay iskuul la galeen oo jaamacada kaga soo baxeen marka af Carabiga ku badan markay laqabihi uu ka sii lumaya oo tii may xijinin culimadii hore lahaayeen in yar mooyaane qolada warbaahinta ee dambana iyana waa la mid qoladii hore wax ku qoran af Ingiriisi ama Carabi baa loo dhiibi jiray dabeetana tarjuma fawriya inuu markaaba af kale Soomaali ku tarjumaa baa laga rabay waana la tababari jiray iminka dadkoo dhammi waa wada wariyo website iyo jariidad iyo waxbuu qoraa xataa af Soomaaliga daaya nin waliba ka gurigooda lahjada gurigooda lagaga hadlaa buu qoraa saadaradeed inaad fahmin baabay u badantay waxa dhacday marka warbaahinta dambana afka Soomaaliga waa ku tumatay waa baabiisa kan idaacada laga hadlaan sax ahayn ama fiicnayn kan jaraa'idka lagu qoraan in badan oo kamid fiicnayn yani aad buu u baaba quality-giisu wuu liitaa tayadiisu aad bay u liidataa warbaahinta dambe haddaan warbaahintii hore ammaanaya ta dambe way ceebaysanta kooxda saddexaadna waa macallimiintii iskuulayda iskuulinkii dee dawlad baa jirtay oo daabacaysay maxaa la yidhaahdaa curriculumkii manaahijtii bugaagta u soo daabacaysay oo la dhigayay hadda markay dawladihii burbureen ee curriculumkii cid soo daabacda aanay jirin nin waliba meelaha kaluu kala yimi syllabus yar iyo curriculum waddanka markaad iminka Soomaaliya gudaheeda tagto qaar mid ay Kenya kala qaateen bay sitaan qaar Yemen bay sitaan qaar Sacuudiga mid ay kala yimaadeen bay sitaan waxa laga yaabaa ilmahagu hadduu iskuulkan dhiganayo abha iyo waxba loo dhigayaa iyo shu'uun ijtimaaciya waa markaad kaa kala geysa kasale iyo meel kale u dhiganaya wax kale ah markaad Yemen geysa tacis iyo meel kale u dhiganaya waayo dee dadkani ma haystaan buugaag saadaradeed waxay iska soo xambaarteen nin walba cidii sadaqa u siisay ayuu ka soo qaatay marka manaahijtii markay duntayna macallinka dambana isna culture iyo dhaqanka ma ilaalinin dee waxa inaga dumay buu afku ka mid yahay dawladnimo qura inaga ma dumine dadnimadii Soomaaliyeed oo dhan ba duntay waxay hidde iyo dhaqan iyo af iyo culture iyo waxay lahaayeen bay dumiyeen walina inay dib u dhisaan waa diidan yihiin sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay dhalinyarada maanta waxay xiirtaan geesaha timahooda haddayse jartaan timaha u deystaan sidii dhaqankii hore oo timaha ay deystaan diinta maxay ka qabtaa oo iska daayaan jeegada ay xiiranayaan mas'alada aadaabta ku saabsan waa mas'alo diiniya مثلا دين هان ما بنانا تما بدنا إن للريبه بدنا لدايو بدنا لحيره وحيابا غريب كاو حكم ده وحي الصومالي دي مقالة تشوفي شرتي عيب ويقانين أي إمك كون ضمب البحر ما هو يقانين مثل مقالو إنك وحلا يسورين شري هبل وان دور كصومة قانين الصومالي دي بادية يكون نولان شرتي قفاد يا بيه يا وحبة ما تشرين مركع عرورته ويحيري تشرين لكن إنما ضي هبلا سيوك على صاعان
qaarna food bay u samayn jireen qaarna dhowr bay u samayn jireen ma bannaana diin ahaan in qofka timaa inta in laga xiro in yar la soo reebo magaalada marka la yimi qoladii magaalada joogtay qofka ay leeyihiin waa reer baadiya ama waxba garan maayeen waa dhoorra bay odhan jireen iminkana dhoorranimadii baa faan idiin noqotay waayo gaal dhoorra aba aragteen waxaa cajabta qaba gaalku markuu dhoorraha noqday ayaa dhoorranimadii halka kan faan ka noqotay waxaan leeyahay dhaqan waliba oo dad leeyay wax xun wax san iyo wax wanaagsan waa leeyay diimaha waxa loo soo dejiyey in lagu saxo dhaqamada wixii qaldama marka ka diin ahaan muslim baynu nay dhaqankeenna waxa ku jira qaldan inaynu saxanna bayna saaran inaynu dhaqanka ka guurraayna ma saaran laakiin waxayna saaran wixii qaldani ku jira inaynu saxanno dee kana ay weydiinaysaanna waa dhaqan gaalada ma ku dayanaa un ilaa kaama aha soomaalidii hore ma ku dayanaaye waxaad u jeedaa un in gaal maraykanka degani kuwan baaskitka cayaaraha xiirtay dadkao dhammi wuu xiirtay xiirnimaadkii waa noqday iminkay gadhka la baxeen dadkii oo dhammi gadhku la baxay gadhkiibaa ammaan noqday yacni gaalkaa markaan joogee maalintuu xiirtana inaad xiirato maalintuu timaa la baxana inaad la baxdaa waa ceeb waxay qof muslimoo kaljar iyo dhaqan loo ku faanaya inaad ahaato oo wixiisa samaysanaya sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay soomaalida waxay ku hadashaa lahajaad badan lahajadee sax ah afafka marka laga hadlayo lama yidhaahda lahjadee saxa lahjaadku waxay ka wada mid yihiin af soomaaliga way fiicantahay in af soomaaliga grammarkiisa rasmigaa la helo oo baxthi la sameeyo la baadho waa suurtagal maalan eray afka ka mid ahaa inaad aragto oo xaafad ku dhintay ama qayb ka dhintay oo aan joogin lahjada kale markaad timaado aad u imanaysaa markaasaad garanaysaa inuu eraygani af soomaaliga rasmiga ka mid ahaa tusaale aan idi siiyo kasmo waxaa kasimaayo hadda koonfurun baa laga yidhaahdaa soo maaha waqooyi iyo haddaad tagto maxaa la yidhahaa kilalka shanaad iyo dhulkaa kasimaaya cidib kama hadasho laakiin haddaad adabkoodii ku noqoto inuu eray soomaaliyadoo saxayay baad garanaysaa adabkoodii hore haddaad dib ugu noqoto maalan cali dhuux markuu gebiyayey muxuu lahaa kunka caligariye qabaal kawskaga siiyey kasi waaye wuxuu waa qabaalo waanaad kabataa kasi waaye waa eraygiioo ficila ayuu isticmaalaya maxay yidhaahdaan maahmaahooda maxaa ka mid ahaa kas dumar oo kadaloobra kaaga dambeeyey kaad ku ogaydba ma aha maxay kaloo yidhaahdaan kal caana galeen kasma galaa la yidhi kalka soo ma taqaaniin kalku waa xaggee kal iyo laab baan kaa salaamay soo ma maqashid ama kash iyo laabtaan kashanay sheegayaan xarafka sha baa raacay oo laamkaa go'a hal sha haddaad raaciso hasha buu noqonaya kal buu ahaa sha baad ku dartay kasha buu noqday kal caana galeen yacni waa markay dumarka ka warramayaan waa naaqisatu caqli wadiin biluqa soomaaliya lagu yidhi kal caana galeen kasma galaa la yidhi bay leeyihin yacnii eraygaynu uga jeednaa erayga kan markaad maahmaha ku noqoto markaad gabayada ku noqoto waxaad arkaysaa inuu eray rasmiyo luqadii soomaaliyeed ku jira uu yahay laakiin inuu gobolladaa ka dhintay laakiin gobollada qaarkood inuu weli nool yahay oo si caadiya loo isticmaalo marka lahjaadku erayo badanoo soomaaliya oo xaggan ku dhinto xaggan ku nool baad helaysaa lahjaadku afkay ka wada mid yahay lama yidhaahdo kee saxa laakiin waxaa la raadiyaa formal language inuu yeesho laakiin lahjaadku afkay ka mid yahay بسم الله الرحمن الرحيم السؤال ugu dambaysa waxa weeyaan laba su'aalood baan isku qaban hayaa gabadh waxay leedahay halkan ay ku soo direen message waa qof dumara gabadh baa iga xanuunsan oo IC ku jirta kooma ku jirta hal igu soo duceeyo qofkan kalena wuxuu leeyahay isna hal ii soo duceeyo awlaad saalixa iyo caafimaad igu soo duceeyo marka ducadaas aan ku soo khatamanana sheekh fadal بسم الله انت xanuunsanayso ilaahay caafimaad khayr qaba ha siiyo inta dhib kale haysato ilaahay dhibtaa kaaga dulqaado inta baahi ubad hayso ubad khayr qaba allah ha siiyo qof waliba wixii dhibe tabanayo ilaahay ha ka kor qaado wixii wanaaga u jeceliyana allah ha siiyo inteennii dhimatay allah u naxariisto
inta nool alla dembigooda ha dhaafo sala allahu calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam